بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كسر وهذا أرضي حيسدني برشادة لغة إنجليزية ده أما أف إنجليزي ده وإنه كسوق عدني بيس ما بحال قوه سيسي أسألك اللغة الإنجليزية ده waxaan ka soo bilownay xiisadii ka horeysay barashada ABCD-da maanta casharkeena labaad ee af Ingiriisiga waxa uu noqon doonaa ABCD-da Ingiriisiga waxa loo qaybiyaa sida af Soomaaliga oo kale waxa loo qaybiyaa laba af Soomaaliga sidaan naqaano baataajada waxa loo qaybiyaa laba waa shaqal iyo shibane shaqal wuxuu noqonayaa wixii sanqadha sameynaya ama macnaha sameynayay ee ku jiray afka shaqaladu waxa weeye waa shan af Soomaaligana waa shan Ingiriisigana waa shan shibanayaashu af Ingiriisiga waa 22 waxay noqonayaan marka ABCD-du 26 22 marka loo gooyo 5 waxay noqonayaan 26 baladaba af Ingiriisigu waxa uu leeyahay shaqal iyo shibane haddaba Ingiriisi maxaa lagu yiraahdaa ereyga shaqal waxa loo yaqaanaa vowel soo dhawaaqiisii waniga halka ku qornay waxa loo yaqaanaa vowel shibane inta badan uu aamusay waa xaraf kaliya ma hadla sagu waa xarfaha waaweyn waaye waa consonant waxa la oranayaa consonant baa la oranayaa shibane waaye haddaba vowelska oo lambar 1 ama qaybta koobaad vowels shaqalo maxaa ugu horeeya waxa ugu horeeya oo aynu ku bilaabaynaa waxa weeye A waanu soo marnay A baa ugu horeysa waxa ku xiga xarafka la yiraahdo E Ingiriisi waxa lagu dhawaaqayaa E baa lagu dhawaaqayaa kuwan waxay noqonayaan kuwa macnaha sameynaya isku xiraaya xarfaha waaweyn iyo ayaga iyagoo kaligood meel yaalana macna ama ma sameyn karaan magac dhameystiran haddii iyagu meesha ka maqan yihiin oo kuwa kala yaalana ma sameyn karaan kuwa kalena magac macna sameynaya ama dhawaaq dhameystiran xarafka kale ku xiga waa xarafka la yiraahdo I waxa lagu dhawaaqayaa arday I xarafka kale ku xiga waa xarafka la yiraahdo o xarafka ugu dambeeya ku xiga wuxuu noqonayaa xarafka u aan ku soo celiyo xarafka ugu horeeya ee vowels waa shaqalo waxa ugu horeeya xarafka A xarafka labaad ee ku xiga wuxuu noqonayaa xarafka E xarafka kale ee saddexaad ee ku xigana wuxuu noqonayaa I xarafka afraad ee ku xigana wuxuu noqonayaa xarafka O xarafka shanaad ee ku xigana wuxuu noqonayaa U guud ahaan vowelsku waa shanta xaraf ABCD-da qaybta alphabetiska waxaanu gelaynaa qaybteena labaad ee consonantiga oo 22 xaraf dhammaantood waanu soo marnay inta badan waanu garanaynaa balse ardaydu ma yaqaanaan ABCD ma yaqaanaane kuweeba vowelsa kuweeba
consonantia inaad kala baratid ayay muhiimadeedu tahay casharkeena hore ayaan uga sii gudbaynaa xarafka ugu horeeya waa xarafka la yiraahdo b waxa la yiraahdaa b for book laba b baa jira waxa la yiraahdaa b for book xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka c xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka d xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka f sida dhamaan soo marnay xarafka ku xigana wuxuu noqonayaa xarafka g g baa lagu dhawaaqayaa xarafka ku xigana waa xarafka h h xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday xarafka j taa hore waxay ahayd g bay ahayd g tan waxa weeye j waa Soomaaliga jida ay naqaano j baa loo oranaya j xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday xarafka k xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday qaybtan kale oo kale waa kan l xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka m xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka n xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa xarafka p for pen baa la yiraahdaa qalinka loo soo gaabiyo inta badan xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday xarafka q xarafka kale ku sii xigana wuxuu xarafka r xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday xarafka s xarafka kale ku sii xigana wuxuu noqonayaa arday xarafka t xarafka ku sii xiga arday waxa weeye xarafka v xarafka ku sii xiga wuxuu noqonayaa arday xarafka w xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa xarafka x xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa arday xarafka y xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa arday xarafka z guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa arday casharkeedii labaad haddii ilaahay ka dhigo insha allah bar walba waxaan idin rajeynayaa guul inaan maxay tole luuqaddu waxa weye bayska haddaan laga soo dhisin oo bayska laga bilaabin waxa weeye way kugu adkaanaysaa maanta waxaa taqaanaa ABCD-da iyo labada loo qaybiyo inay maxay kala yihiin vowel iyo maxay consonant inay vowel isku yihiin 5 inay consonant yihiin 22 saa daraadeed guul iyo gobonimo idin rajeynayaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan bilaabi doonaa casharadii caadiga ahaa wixii ka dambeeya iyo ereyadii ama weeriskii ayaan bilaabi doonaa iyo macnahoodii af Soomaaliya si joogtaana waa idinku soo gudbin doonaa haddii ilaahay ka dhigo waana ku xisaabtami doonaa